salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, waxaad kusoo dhawaataan warka fiidnimo ee Hilla Media. qodobada aad ku daawan doontaan caawa waxaa ugu waaweyn: gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee gobolka Mudug Hanad Cabdi Faarax ayaa sameeyay magacaabis. ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo gudoomiyay shirka horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya. amara la duldhiga ciidamada iyo taliyaasha gobolka Hiiraan. xildhibaano ka hadlay dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo gaaray Beledweyne iyo banaanbaxyo ka bilowday. ciidamo cusub oo loo diyaariyay dagaalka Al-Shabaab. yuusuf dabageed siyaasi aan laga maarmin haddana loo maaralayahay. warbixinadan ayaan idinkaga haynaa saaxiibayaal. akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn warbixin cudur Ebola oo laga helay dalal ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya, iyo markaasi nin Maraykan ah oo qirtay inuu dil ugu hanjabay Ilhaan Cumar iyo xildhibaano kale. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal. mar kale isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal. aanu ku bilownay qodobka ugu horeeya. ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guleed Khadar ayaa maantay shir gudoomiyay shirka horumarinta iyo dib u dhiska dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. shirkan oo ay ka soo qayb galeen beesha caalamka iyo deeq-bixiyaasha ayaa lagaga hadlay arrimaha doorashooyinka, qorshaha dib u dhiska iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. kulankan ayaa sidoo kale looga hadlay shirka xiriirka iskaashiga Soomaaliya oo Muqdisho lagu qabanayo bisha Julaay ee sanadkan. shirkan ayaa warbixin looga dhageystay maamulka gobolka Banaadir oo soo bandhigay mashaariic ka socota gobolka iyo horumarinta uu ku tallaabsaday. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa sidoo kale shirka kusoo bandhigtay horumarka laga gaaray oo diyaargarowga doorashooyinka dalka ee sanadka 2020 ilaa 2021. wasaaradda haweenka ayaa ka qayb gashay shirka kusoo bandhigtay mashruuc horumarinta haweenka Soomaaliyeed. shirkan ayaa ugu dambeyntii lagu ansixiyay mashaariicda taageerada doorashooyinka dalka iyo xanaaneynta dhalinyarada Soomaaliyeed ee la soo laabtay marin habaabinta kooxaha argagixisada. gudoomiyaha ururka suxufiyiinta ee gobolka Mudug Hanad Cabdi Faarax ayaa sameeyay magacaabis xubno ka tirsan ururka suxufiyiinta gobolka Mudug. warqadda magacaabista ayaa sidan u qoran: ujeedo magacaabista xubnaha fulinta iyo marjaca ee ururka suxufiyiinta gobolka Mudug markuu arkay qodobada dastuuriga ah ee gudoomiyaha awoodda u siinaya magacaabista xubnaha fulinta iyo marjaca ururka suxufiyiinta gobolka Mudug markuu arkay howlaha shaqo ee horyaalla ururka suxufiyiinta loona baahan yahay in la dardargeliyo shaqooyinka ururka. markuu la tashaday xubnaha ururka suxufiyiinta gobolka Mudug wuxuu magacaabay gudoomiyuhu xubnaha kala ah: xubnaha fulinta xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic, xoghayaha ururka suxufiyiinta gobolka Mudug farxiyo ciidiid xasan farxiyaladan, madaxa xiriirka saxaafadda baashi cali xaashi, madaxa tababarada ururka suxufiyiinta gobolka Mudug mahad daahir maxamed Ameeriko, madaxa maaliyadda ururka suxufiyiinta ee gobolka Mudug cabdirasaaq maxamed axmed afey, madaxa isku xirka saxaafadda iyo bulshada. xubnaha marjaca: cabdiwaaxid macalin isxaaq, gudoomiyaha guddiga marjaca; cali maalin nuur, xubin guddiga marjaca; deeqo maxamed sheekh cali, xubin ka tirsan guddiga marjaca. warqadan ayaa waxaa ku saxiixan markaasi gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka Mudug Hanad Cabdi Faarax. maxkamadda qalabka sida ee qaybta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay markaasi amara duldhigtay ciidamo iyo taliyaasha ciidanka ee ku sugan gobolkaasi kadib dagaal ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne. ciidankan iyo saraakiishooda ayaa looga digay inay ka qayb qaataan xiisada ka taagan gobolka Hiiraan, taas oo sababtay inuu ku geeriyoodo taliyihii qaybta booliiska gobolkaasi Maxamed Macow Xalane. amarkan ayaa waxa uu ka soo baxay maxkamadda qalabka sida
qaybteeda 27 ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxaana warbixinta oo akhriyay Dhammaan Maxamed Cabdulle Aadan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka magaalada Beledweyne kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wasiirka hore ee amniga Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa baaq nabadeed u diray dadkii shalay ku dagaalamay deegaanka Kalabayr oo ku yaala duleedka Beledweyne isagoona tacsi u diray eheladii uu ka geeriyooday taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan Maxamed Macaw Xalane madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa safar degdeg ah uu kaga soo laabtay dalka Kenya ku gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweyne Waare ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne waxa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan madaxweynaha ayaa sheegay in sababta uu tagay magaalada in ay tahay soo afjaridda xiisada ka dhalatay xilka qaadistii gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Dabage markii uu soo gaaray magaalada ayaa waxaa bilowday banaanbax xooggan oo looga soo horjeedo isla markaana lagu taageerayo gudoomiyihii xilka laga qaaday Yuusuf Dabage ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xirada tababarka General Gordon ku booqday ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo diyaarinayay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ra'iisul wasaaraha ciidanka ugu tagay inuu ku dhiirigeliyo shaqada ay qaranka u hayaan in uu ogaado baahida qalab ee ay qabaan iyo in uu la dardaarmo ayaa uu sheegay in ciidanku ay yihiin shaqada ugu muhiimsan ee dalka maadaama ay iyagu dhiigooda dalka u horeen ciidamada ayuu ra'iisul wasaaruhu u ballan qaaday in ay markaasi xuquuqdooda si joogto ah u heli doonaan dawladana ay si gaar ah xil isaga saartay baahida qalab ee ay qabaan markaasi loo dhammaystiro si dadka iyo diinta cadawga ay uga difaacaan dawladda Soomaaliya oo ciidanka u samaysay dib u habayn ballaaran ayaa wada qorshe dalka looga saarayo Al-Shabaab arrintaas oo qayb weyn ka ah markaasi halbeegyada tubta amniga iyo horumarka ciidamada Soomaaliyeed ay ula wareegayaan mas'uuliyadda dalka xiisada ayaa weli ka taagan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii duleedka magaaladaasi ay ku dagaalameen ciidamo booliis ah iyo kuwo taabacsan gudoomiyihii hore ee xilka laga qaaday maleeshiyada daacadda oo Dabage ayaa waxa ay sheegeen inay ku sugan yihiin Beledweyne iyadoo gudoomiyaha cusub ee la soo magacaabay oo uu degay guriga martida ee gobolkaasi madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sabtidii aynu soo dhaafnay wareegto uu ka soo saaray waxa uu xilka kaga qaaday Dabage hase yeeshee Yuusuf ayaa weli ku adkaystay in uu yahay gudoomiyaha sharciga ah ee Hiiraan isla markaana ay sharci darro tahay warqadii isaga shaqada looga fariisiyay Yuusuf Dabage oo maalmo ka hor dhaliilay siyaasadda Maxamed Cabdi Waare ayaa warbaahinta u sheegay in sababaha uu xilka qaadista u diiday ay ka mid yihiin in wareegtada shaqada looga joojiyay aysan waafaqsanayn dastuurka maamulkaasi Yuusuf Axmed Hagar Dabage oo 4 jeer soo noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa marar badan laga qaaday xilkaasi inkastoo haddana dhowr jeer oo kale dib loogu magacaabay Dabage ayaa xilka horey loogu magacaabay sanadihii 2007 iyo 2005 xilliyadii dawladihii Cabdullaahi Yuusuf Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii 2018 uu ku soo magacaabay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle taasi oo markaasi gobolka Hiiraan marka la eego dhowr jeer oo loo soo magacaabay xilka gudoomiyenimada waxa uu sidoo kale Dabage soo noqday gudoomiyihii gobolka Hiiraan xilligii hogaamiye kooxeedyada ay ka talinayeen Soomaaliya imikana akhbaaraadka dibadda sargaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka dalka Uganda ayaa wakaalada wararka ee FBI u sheegay in wiil yar oo 5 jir ah uu maanta u dhintay cudurka Ebola kaas oo maalmo ka hor
laga helay cudurkaasi. dalka Uganda ayaa kamid ah dalalka Soomaaliya ay ka joogaan ciidamada. kiiskaas ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee dalkaasi tan iyo markii dalka ay dariska yihiin ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ka dhacay cudurkaasi. ugu dambeyntiina eedaysana lagu magacaabo John Kales oo 49 jir ah ayaa waxa uu qirtay inuu cabsigelin dil ah u diray 3 xildhibaan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga isla markaana uu aflagaadeeyay Ilhaan Cumar oo Soomaali Mareykan ah oo ka tirsan aqalka Koongareeska. dacwadda ogayaashan waxa ay shalay maxkamadda ka hor sheegeen inuu eedaysanaha markaasi bishii Abriil 16 uu fariin cod ah oo ugu hanjabay u kala diray xafiisyada xildhibaano ka tirsan Koongareeska Mareykanka oo ay ka mid tahay Rashid Tlaib. xildhibaanadaas iyo Ilhaan Cumar waxay yihiin haweenkii ugu horeeyay ee muslimiin ah oo loo doorto aqalka Koongareeska dalka Mareykanka. eedaysana John Kales waxa uu si xag jir ah oo aflagaadeeyay Ilhaan Cumar isagoo ku xiriiriyay weerarkii ururka Al-Qaacida ee diyaaradaha la afduubtay ee laga geystay daarihii mataanaha ee Mareykanka bishii Sebtembar 11 sanadii 2001. John Kales waxaa la sheegay inuu madaxweyne Donald Trump ku difaacay fariimo isla markaana ugu digay xildhibaan Ilhaan Cumar iyo kuwa kale ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga inay joojiyaan naqdinta ay ku hayaan madaxweynaha Trump. bishii Abriil waxa uu madaxweyne Trump bartiisa Twitter ka soo dhigay muuqaalka Ilhaan Cumar iyo dhismihii xarunta ganacsiga ee Tower Trump oo gubanaysa. qoraal uu ku muujinayay dareenka Ilhaan Cumar ee weerarkii Al-Qaacidada ah ee daarihii mataanaha Mareykanka ee bishii Sebtembar 11 sanadii 2011. dhinaca kale maxkamadda federaalka ee gobolka Florida waxa ay aragtay in uu eedaysana John Kales qirtay inuu xildhibaanada ku cabsi geliyay isgaarsiinta, waxaana dacwadiisa dib loo dhageysan doonaa bisha soo socota ee sanadka July 20 halka ay warar qaar sheegayaan in dacwadda la qaadi doono bisha Agoosto 20 ee sanadkan. eedaysanahan waxaa laga yaabaa in lagu xukumo xabsi 5 sano ah iyo ganaax dhan $25,000. intaas ayaa kusoo gabagabeynayna saaxiibayaal warkii fiidnimo oo aad ka daawanayseen muuqaalbahayaha Heyla Media. warka xiga ku kulmaan waa anigoo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. ha hilmaaminina subscribe-ka iyo share.